wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa soo gaaray dalka Norway gaar ahaan caasimadiisa Oslo asagoo ka qayb galaya shirka sanadlaha ah ee lagu magacaabo Oslo Forum. Haddaba markii uu ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Oslo, telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable ayaa waxa u suurta gashay inuu su'aalo ka weydiiyo faa'iidada shirkan uu leeyahay dalkeena Soomaaliya. Waa tahay daawadayaal, waxaan ku sugannahay garoonka caalamiga ah ee magaalada Oslo. waxaan la kulannay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo halkan safar ku soo gaaray. wasiir soo dhawow, Oslo ku soo dhaweynayna iyo Somali Cable TV. magacaygu waa Khadar Muuse Shire. safarkaaga aad halkan ku soo gaadhay. Khadar, waa mahadsantahay, waa dhowahay, waa ku faraxsanahay inaan idin la kulmo, inaan imaado magaalada Oslo ee dalka Norway. safarkaygu wuxuu ku saabsan yahay ka soo qaybgal kulan sanadle ah oo ka dhaca magaalada Oslo dalka Norway oo maaragtay arrimaha adduunka ka taagan xasiloonida iyo nabadda iyo horumarka looga hadlo. dalal badan ayaa ka soo qayb galaya, wasiirro badan ayaa ka soo qayb galaya, wafdi kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna wasaarado kale ka socda ayaa imaanaya. marka kulankaas ayaan u yimid. waxaa kaloo ka mid ah qorshahayga inaan la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway. waa tahay kulankaas waxaan filayaa sanad walba uu dhacaa. sanadkani muxuu faa'iido dalkeena u leeyahay marka la yiraahdo arrimaha dalkeena ka socda oo ama dhanka horumarka ha ahaato ama dhanka amniga ha ahaato ama xiriirka labada wadan? faa'iido badan ayuu u leeyahay. waxaa weeye saad ka warhaysid, dalka Norway oo dalalka Soomaaliya ugu saaxiibsan yihiin. mar dhoweyd waxaa joogay dhowr beri ka hor wasiirka arrimaha dibadda Norway ayaa Soomaaliya joogtay oo madaxdeena la kulmaysay. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha la kulantay. kulankan sano hore waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. marka faa'iido badan ayuu u leeyahay. waa mare waxaynu ka qayb galaynaa maxaafisha ama golayaasha adduunka ku kulmo. waa marka labaad ee Norway oo dalan saaxiibnahay oo xiriirkooda aan aad u danaynayno. waa dalalkii ugu horeeyay ee aad u taageera horumarka Soomaaliya, aqoonsada baasaboorkeena. marka wanaag badan ayaa naga dhaxeeya, wanaaggaas ayaan sii wanaajinaynaa. waa tahay, aad baa u mahadsantahay. waa mudantahay. Khadar Muuse Shire, Somali Cable, Oslo, dalka Norway.